بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وعشر كني سدحاد كتابك أما رسالة الفقه الميسر في أحكام الصيام، وحين سوغرني فصل فيما يكره للصائم، وحيابها قفك الصومن لو نعي أما كراهية أي نكهد لينا. والكذب والغيبة والنميمة بانتا إيو حانتا إيو اسكو دردركا ayaa waxa weeyaan karaahiye ah buu yiri, laakiin waa xaraam kuwan inuu qofku uu ku kaco isagoo sooman iyo isagoo sooneynba. almubaalaghatu fi almadmadati walistinshaq, inuu qofku waxa weeyaan sandaarsiga iyo waxa weeyaan luqluqashada uu ku xeel dheeraado ayaa karaahiye ah. dhawqu at-ta'ami bighayri haaja, dan la'aan inuu raashin u dhadhamiyo ayaa waxa weeyaan karaahiye ah. أن يجمع الصائم ريقه ثم يبتلعه، قفك الصومان إنه عندوفتي سوء أرسله كبعدنا أولقه أيا كراهية وهلك إنرجي كراديو. مضغ العلك غير المتحلل، إنه قفك وحويان وعلى ليو حنشذا أيا كراهية وحنشذا عن ملمين، هذه أي ملمي سوء مدعان أي لا هاي تا وحويان وبحرام ويصونك وكبريا، لكن مدى عن ملمين وعن واحد عن كسو بحين حتى كراهية وي. القبلة لمن تحركت شهوته، دون كشو أما شمس أي حرامة قفك شهودي سي أي دقات شدي كراهية ويان يدنا. رواية الشعر إن وقفك وحويان وقبي وريو أما وسوي شديو إساق الصومن أي كراهية وكمشغوله halkii waxa weeyaan digriga Ilaahay iyo Quraan akhriska uu kaga mashquuli lahaa. wisaalu siyaami, soonka in la xiriiriyo ayaa karaahiye ah. Nabiga sallallahu alayhi wasallam waa diiday in soonka waxa weeyaan la xiriiriyo, markaas ay asxaabtu yiraahdeen adigu waa xiriiraysaa rasuulkii Allah soonka, markaas uu yiri anigu waxa weeyaan idinkoo kalmihi Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba iqoodiyo oo awood isiiyo, marka qof waxa weeyaan wax cunay wax cabay awoodiisa kale Ilaahay isiinaya buu yiri. marka xiriirinta la sheegayna waxay tahay qofku waxa weeyaan inuu soomo maalin kale uu soomo uusan afurin oo uusan sixuuran, taa weeyaan lama ogolo taas. maxaa yeelay ujeedada soonku waa la'allakum tattaquun, ma aha qofka inuu isdhibo. allahwu wal-la'ib wal-ishtighal bima la ya'nihi, qofku waxa weeyaan inuu dheel iyo baashaal uu waxa weeyaan ku mashquulo iyo waxyaabo aan wax loo fadhin ayaa waxa weeyaan karaahiye ah. waxaan galaynaa faslun fi man yajuuzu lahum alfitru fi ramadaan, dadka loo ogol yahay inay afuraan bisha ramadaan. waxaa loo ogol yahay bisha ramadaan inay afuraan kow almariid, waa qofka jiran. jirada waxaan u kala qaadaynaa afar. qofka jiran ee jiradiisa soo booda ah oo waxa weeyaan la rajaynayo in uu waxa weeyaan uu bogsoodo ama uu raysto, qofka waxa weeyaan intii uu jiran yahay ayuu afurayaa, ka bacdina markuu uu raysto maalmihii waxa weeyaan uu soonkii waxa weeyaan uu ka tagay uu soo qalaynaya ramadaanka ka bacdi. jirada caadiga ah weeye. nooca labaad ee jirada waxa weeyaan waa qofka xanuunsan ee aan la rajaynayn inuu soo raysto. ninka waxa weeyaan maalin kasto miskiin baa laga qoodinayaa, wax qala ahna dushiisii ma ahaanin, maxaa yeelay rajo ma leh caafimaadkiisii dhaqaatiirtu ay ka deyriyeen. ama ninka xanuunkiisu iska fudud yahay sida hargab yar ama waxa weeyaan madax xanuun yar haya ama goos iska soo siibay xanuunka uu la kulmay bas, ka waxa weeyaan iyo wixii la mid ahba waxa weeyaan uma banaano in iska afuro. nooca afraad ee jirada waxa weeyaan qofka soonku uu dhibayo uu sababsanayo dhib hadduu soomoba, difaaciisa yar waa jiraalow, waa bukaan socod. hadduu soomo wuu dhibtoonayaa, marka waxaaba dhacaysa inuu waxa weeyaan uu dhinto ayaaba laga yaabaa. ninkan oo kale waxa weeyaan ma soomayo, markaas soonkii xaraam buu ka yahay. qofka labaad ee loo ogol yahay inuu iska afuro ramadaanka waxa weeyaan ash-shaykh al-kabiir, waa qofka odayga ee waayeelka ah weeyaan, iyo haweeneyda da'da gaartay, labaduba mid walba inay iska afuraan ayaa waxa weeyaan loo ogol yahay. waa oday weeye da' gaaray, markaas waxa weeyaan ma soomi karo, difaaciisa yar, tabar uma hayo soonkii, maalin walba miskiin buu quudinayaa, wax qala ahna lagama rabo kaas.
qofka laakiin caqligiisii iyo miirkiisii uu tegey oo odayaashana ka mid ah oo aan tamyiisna lahayn waxna kala sooci karin oo isku dhex yaacay ardal cumr gaaray da'da tii ugu liidatay oo ah waxa weeyaan heer uusan caqli lahayn uu gaaray ka waxa weeyaan faradkii baaba ka dhacaya maxaa yeelay caqli ma leh soonna ku waajibi maayo miskiinna laga quudin maayo maxaa yeelay takaaliifta sharciga ah waxyaabaha qofka wax lagu kalifaya dhinaca maqaanba oo ah alcaqlu dadka saddexaad ama qofka saddexaad ee loo ogol yahay inuu afuro waxa weeyaan almusaafir musaafirka inuu afuro ayaa loo ogol yahay waa rukhsa weeyaan waa loo fasaxay hadduu awood uu leeyahay uu soomi karana wuu soomi karaa laakiin rukhsada inuu qaato ayaa fadli badan sida axaadiista nebigu kusoo arooreen qofka musaafirka waxaa loo ogol yahay inuu iska afuro bisha ramadaan uuna waxa weeyaan waajib ayna ku tahay inuu soo qallayo ramadaanka ka bacdi waa haddii safarkiisi uusan ahayn mid xeeladaysi ah ama soonkii uu kaga cararay uusan ahayn qofka afraad ee loo ogol yahay inuu iska afuro bisha ramadaan waxa weeyaan alxayd wannifaas xayd iyo nifaas baa loo afurayaa gabadhii xaydka ku dhacay ama gabadhii dhashay oo dhiiggii umusha ku dhacay way iska afurayaan kuwaas waajib bayna ku yihiin inay afuraan soon hadday soomaana xaaraam weeyaan xaaraam bay ku dhaceen inay soo qallayaan baana ku waajibaya maalmo kale ramadaanka ka bacdi dadka loo ogolaaday inay soonka waxa weeyaan ay iska afuraan waxaa ka mid ah alxamlu waridaa uur iyo nuugmo haweeneyda uurka leh iyo midda ilmaha nuujinaysa laakiin ku dhibtoonaysa ayaa shardi ah oo waxa weeyaan u baqayda nafsadeeda iyo caruurteedii ama ilmaha caloosheedii ku jira u baqayda taa waxa weeyaan haddii ay soonto cabsidaa lasoo darastay waxaa u bannaan inay iska afurto maalin walba miskiin ayay quudinaysaa waa kan madhabka ay ku tageen asxaab fara badan iyo taabiciin fara badan ayaa sidaa qabta ama shaaficiyadu waxay qabaan labay u kala qaadayaan haweeneyda ilmaha nuujinaysa ama uurka leh haddii waxa weeye nafsadeedii ay u baqdo waxa weeyaan way iska afuraysaa ramadaanka markuu dhammaadana maalmihii ay afurtay ama ramadaankii way soo qallaynaysaa haddii ay u baqda bay yidhaahdeen ilmaheedii ay u baqdana waxa weeyaan way iska afuraysaa ramadaankana waxa weeyaan way soo qallaynaysaa maalin walbana waxa weeyaan fidye ayay bixinaysaa sidaas ayay leeyihiin waa madhabka shaaficiyada weeye hada aakhiru wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin fadlan ka qayb qaada walaal faafinta khayrka oo sii sheer garay pagekeenana subscribe garay wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu